magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Ar ku dhashay kuna barbaaray waxna ku bartay magaalada Hargeysa imikana ku sugan muddo 4 bilood magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay anigoon codsan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo aan gudbiyay astaantayda wadaniyadeed isaguna uu siiyay dardaaran iyo talooyin wax ku oola waxa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu guddoonsiiyay hadiyad sharaf iyo astaan ka samaysan calanka Soomaaliya waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo